Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد iibkii ugu dambeeyay la sameeyay wali dhammaan ma soo wada gelin systemka. هاي قيبتي إيبكون سوق لي لكن قيبتي كلا ديمها هذا. Okay, waa sax oo kusugaya. dunidan dambe ee casriga iyo tiknoolajiyaddan isbedelaysa maalinba maalinta ka dambaysa waxa ay sahashay in loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhuba ay xisaabtooda si wada jir u wadan karaan iyagoo oo jooga meelo kala duwan oo adduunka daafihiisa ah isticmaalayana barnaamij xisaabeedka QuickBooks Online. QuickBooks Online waa hab xisaabeed kuu sahlaya xisaabtaada inaad kala socoto meelo kala duwan adiga oo jooga gurigaaga adiga oo wadanka ka maqan iyo adiga oo goobtaada shaqada joogaba. QuickBooks Online waa barnaamij advanced ah ama heer sare ah kaasi oo kuu sahlaya in aad meel kastaba xisaabtaada kala socon karto haddii aad shaqaale tahayna in aad shaqayn karto adiga oo joogin goobtaadii shaqada. QuickBooks Online waxa uu kuu sahlayaa in aad shaqaalahaaga siiso awoodsiin taasi oo macnaheedu noqonayso in aad midba shaqo gaar ah u magacowdo sida mid aad ka dhigto sales sida mid aad ka dhigto account receivable ama deymaha iyo waxyaabaha la halmaala. QuickBooks Online markaad isticmaalaysid waxaad awood buuxda u haysataa inaad shaqaalahaaga dabagal ku samayso marka la joogo systemka dhexdiisa adigoo jooginba goobtaadii shaqada ama wadankaba ka maqan waxa aad la socon kartaa xogtaadii xisaabeed ama xogtaadii maaliyadeed waxaad ogaan kartaa shaqaalaha systemka soo galay sidoo kale waxaad ogaan kartaa shaqaalaha wax edit gareeyay sidoo kale waxaad ogaan kartaa shaqaalaha edit gareeyay xogtii hore u kaydsanayd ee systemkaaga QuickBooks Online. haddii aad tahay shaqaale ku shaqeeya QuickBooks Online waxaad chance u haysataa inaad shaqayso adigoon imanin goobtaadii shaqada ama adigoo wadan kale jooga aad ka shaqayso wadan kale. haddaba maxaad sugaysaa maantaba kordhi aqoontaada iyo garaadkaaga u leedahay habka accounting ama xisaabaadka caalamiga adigoo ka faa'iideysanaya kooraskeena QuickBooks Online. haddii allaha awoodda la idmo waxaad la socodsiin doonaa anigoo Khalid Cabdi Gaaxnuuga.